واضح وي waxaadan hore u gadan aadan bahaysanba inaad ku samaysid trade-kaaga aad u gashid buy iyo sell ama short iyo long sababtaas weeye sababta loo yiraahdo forex waa khamaar. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaha ku xiran Somali Cryptofolio xayaakum allah wa bayaakum. marka ugu horeysa ku saliya nabigeena xabiibkeena عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى هو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. موضوعنا مانتا وموضوع مهم ودائما أصحابتي وديان ويرادان كهذل أما فيديو كسمه وحيالها أيكو كل الدوينهين كريبتو كارنسيغو iyo foreign exchange magaciisa soo gaabiyo loo yaqaano forex. Soomaali far badan baa labada business ba ku jira waxyaalaha jira muhiim ah inaan ogaano waxyaalaha kala duwan hadaynu step by step uga hadalno waxaan ku bilaabnaa number 1. marka ugu horeysa hadii laga hadlo hanti ahaan cryptocurrency-ga marka aad hanti ahaan aad gadanaysid مثلا waxaad haysataa dollar baad haysataa waxa loo yaqaanaa cryptocurrency-ga marka laga hadlayo dollarka waxa loo yaqaanaa tether ama USDT waxaana la yiraahdaa stable money guna uu badan yahay dhowr nooc baa jira aan ahayn USDT laakiin dadka badankood waxay isticmaalaan USDT waqtiga xaaliga ahna markaanu ka hadlano USDT rankiga cryptocurrency-ga waxay maraysaa waqtigan aan imka videoga duubayo tether ama USDT wuxuu marayaa waa number 3 buu maraya aragska aragtaan bitcoin baa ugu sareysa ethereum baa ku xigta tether waa number 3 waana dollar waana stable money price-kiisuna yani taqriiban waa $1 0.99 waa iska $1 wey tamam. hanti ahaan markaan eego waxaan ka hadlay cryptocurrency مثلا waxaan doonayay inaan bitcoin iibsado anoo USDT haysta maxamed wuxuu haystaa bitcoin anna waxaan haystaa tether waxaan tagayaa suuqa lagu kala sarifto lacagta cryptocurrency-ga مثلا suuqi waa kan waa mid kamid ah suuqyada cryptocurrency-ga halka haddaad aragtid waa dadka iska iibinaya sellers baa la dhahaa halkana waa buyers waad aragtaa anigu buyer baan ahay buy waxaan iibsanayaa bitcoin buy bitcoin hadda halka kuma jiro dollar ma hayo laakiin haddaan hayo مثلا $10,000 ama $20,000 waxaan oranayaa bitcoin baan iibsanayaa lacagtii aan ku iibsaday bitcoin-ka toos maxamed oo bitcoin iska iibinaya toos waxay u gelaysaa walletkiisa taa ila fahma anigana bitcoin-ku waxay soo gelaysaa walletkayga straight away markiiba waxay qaadanaysaa waqti yar daqiiqaday qaadanaysaa lacagii waa la kala wareejistay adiguna wixii aad iibsatay waa lagugu soo wareejiyey qofkana lacagtii aad u dirtay waa loo wareejiyey sheekadu waa dhammaatay arrimahaasoo dhanna waa exchange-ka ama suuqa gudihiisa bay ka dhacday wallet aan leeyahay iyo wallet uu maxamed leeyahay laba wallet weeye isna wuu iska iibiyey anna waan iibsaday waxaan rabaa inaad point-ka ii fahantaan step by step lana waxaa jira dad labadan arrimood forex iyo crypto aan labadaba fikrad ka hayn marka step by step baan idin kula soconaya number 1 waasaan u sheegay waxbaa la kala iibsaday aniga oo crypto la tacaamulaya okay markaad gadanaysidna waxaa la dhahaa pair bitcoin pair USDT bitcoin oo lagu sarifanayo USDT waa pair weeye خلاص halkaas ku dhamaatay wixii waa la kala iibsaday ولكن marka forex la eego akhyaarta hadalkaas si fiican u dhageysta dad badan baa jira oo forex ka shaqeeya oo aan arintan ogeyn arinta si fiican loo dhageysto ilaahay idin barakeeyo crypto waynu garanay waa straight way wixiitu iibso nin iska iibiyay iyo nin iibsaday sheekadu waa dhamaatay marka aynu forex eegnana maxaa dhacaya waxna kugu soo wareegi maayaan waxna ka bixi maayaan only waxa aad sameynaysid waxaad la ciyaaraysaa laba lacagood hadalka bal si fiican ugu fikira wax kugu soo wareegaya ma jiro wax ka baxayana ma jiro waxa kaliya aad sameynaysid wax weeye waxaad la ciyaaraysaa laba lacagood مثلا laba lacagood oo pair ah مثلا waad aragtaa halka example waxaad la ciyaaraysaa laba lacagood oo isku pair ah haday noqoto GBP USD euro GBP waa laba lacagood oo pair isku ah lacagahan pairka isku ah waa lacago waligood isku lamaan oo aan kala foqayn waxaan siinayaa example yar haddii aan haysto مثلا USD baan haystaa مثلا USD baan haystaa USD-ga aan haysto waxaan doonayaa inaan iska iibiyo oo wax kale ku bedesho مثلا Australian dollar مثلا يعني waxaan doonayaa USD-gayga inaan iska iibiyo oo ku bedesho lacag kale lacagta kale مثلا waa maxay waa Australian dollar ayaan doonayaa inaan ku bedesho USD-gii ama dollarkii aan haystay marka la eego Australian dollar oo xisaabsan oo keligii ah iguma soo wareegayo yani waa mustaxiil isagoo keligii ah Australian dollar oo igu soo wareegaya ma jiro sidoo kale USD-gii ama dollarkii aan haystay wareegi maayo waana saan sheegay waa pair aan kala foqayn oo isku dhigan pairka aan kala foqayn baad markasta ku ciyaaraysa waa inta sheekadu pairkan ma kala foqayo pairka ma ku ciyaaraysa markasta markaynu crypto ka hadalena lacagtii waa baxday
وهتكتي ماشي لدوني قادي قفكي كايبسني بعد قدرتي قفكي اسكا إيبنينا وحي كجرتا ولد كاكا شكد وانا ماتي فرق غاسو وفرق أساسي أو أي كوكا لدويهين كريبتو كارنسي iyo forex. Number 2 aynu eegno waxa kale labaad ay ku kala duwan yihiin kriptadu iyo forex. Cryptocurrency markaad gadato oo aad iibsatid ma dhamaanayso, wax dhamaanaya ma aha. Weligaaba waad haysanaysaa waxaaga. Waxay kugu jiraysaa wallet-kaaga kamana baxayso. oo macnaha markaad iibsatid midhahaagii waad haysataa. Waxaan siinayaa example yar oo basiit ah. Mesela iska badhe waxaan iibsaday 10 xabadood oo Ethereum ah. Coin-ka la yiraahdo Ethereum. 10 xabadood Ethereum ka ah waxay soo galaysaa wallet anigu aan iska leeyahay. way kala duwan yihiin walletaduna hadday tahay wallet ku dhex jira exchange-ka gudihiisa, hadday tahay cold wallet oo private ah, noocyo badan baa jira. Mesela Ledger Nano oo kale, Trezor, way fara badan yihiin walletyadu. Halkaasaad gelinaysaa Ethereum-ka waxaan geliyey wallet ka mid ah walletyada. Lacagtaasu ma dhamaanayso, mana baaba'ayso. Halkaasay ugu jiraysaa ilaa maa sha Allah. Ha noqoto intaasoo sano, insha Allah ha noqoto 100 sano ha noqoto. lacagtaasu meel bay ku jirtaa. cidina ma taaban karto, cidina ma furi karto, cidina ma jabsan karto, laanna private key-gii lagu furiyay oo lagu geliyay wallet-ka adiga haysta, ama lambarkii wixii lagu furiyay adiga haysta. Hadday exchange tahayna dee login-kaagi iyo username-kaagi password-kaagi adiga haysta. yacni waa hanti adigu aad haysatid. maxaa isbedelaya? midhuhu waa isla intii 10kii xabbe Ethereum-ka waa isla intii midhuhu. waxaa isbedelaya price-ka. hadda xabadii waxay maraysaa 1548, waxaa laga yaabaa beri inay noqoto 1600, waxaa laga yaabaa inay soo daato inay noqoto 1300. waa hanti. وكأنه إناد إبستي دول. ما أنت مركز دول إبستي دول كاس وحلقة يا بينات كيو إبستي مثلا $10 وحلقة يا بس سنة كدب إن دول كي كر أقعه برايس كيسي أو نقطة $20 وهدعي كر إن برايس كي دول كأردن هوس صوتاتان أو الغيا بتوان كهكون إني سبب الشيء تدبكون وواحد معقول وسيدا سوكله واحد إبستي أو أدمريه سيه ستيد دول كمركز إبستي دول كو حريقية والجو على مدية أنت سو متر بعد ستا أديك أسكله دول كاسو اسمه بالتليو ما يرانيو مو وينانيو. waxa isbedelaya waa maxay? waa price-kii iyo qiimihii dhulka, laakiin midhihii waad haysataa. wakadalika waxa weeye coin-ka aan iibsaday 10 xabo isbedeli mayso, walaakin waxa isbedelaya waa price-ka coin-ka aan iibsaday. taana aanu isla fahanno. example kale bixitaa dahabka oo kale. haddaad dahabka gadatid isbedeli maayo. dahabku intiisii hadda kiilo ha noqoto, half kiilo ha noqoto, 100 gram ha noqoto, dahabku meeshiisu ku yaallaa wax iska bedelaya ma jiraan, walaakin waxa isbedelaya price-kii iyo qiimihii. ولكن مركن أنو ما نفركس محل دعية هداد لعق قدتو ماشي وحيوان سلبا حالة دود أما فائدو كالتك أما كو خسار لعقت هادونا ويبابي كرتها أو زيرو وينقون كرتها لأنه وحان هنتي أدب ستيماها وما واحد كيتي كرتي مالين أما 14 أما 16 أما 14 لعقتها سو حينقون كرتها زيرو. يعني طريقة كلا أو بسيطة إنو شرحنا معها واحد كيسين كرتو أو آد أدوغو إسكالي داهي تسالن كسينيا example. marka aynu u nimaadno dhinaca forex-na mana oran kartid wallahi Australian dollar-kii aan ibsaday berigii hore waan iska haysanayaa oo maanta iska gadi maayo, walaakin sanadka soo socda ayaan iska gadayaa. taas ma dhici karto. sidii kriptada ma kriptada waad haysan kartaa sanad 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano waad haysan kartaa, waa hanti weeye, laakiin tan hanti ma taa waa elefantin. walidalik ma aha lacag kugu soo wareegaysa oo aad adigu maamuli kartid. farq waadax weeye crypto iyo forex. kaasuna waa farqi kale u dhaxeeya. waxaanu gudbaynaa number 3. waxyaalaha kale ay ku kala duwan yihiin maxaa ka mid ah? cryptocurrency trade ahaan, sarifleyn ahaan uma geli kartid sell oo kama faa'iidi kartid adigoo sell u gala. waxaan siinayaa مثلا example yar. adigoo haysta 10 xabadood oo Ethereum ah ma oran kartid waxaan sell u gelayaa Bitcoin. mustaxiil. taa way fahanteen. yani coin baan hayaa, coin-ka waxaan u gelayaa sell coin kale. ma oran kartid. haddaad wax iska iibinaysid waa kaad haysatid weeye, laakiin adigoo kan maanta iminka haysta 10 xabadood sell uma geli kartid Bitcoin ama sell uma geli kartid XRP. why? sababtu waa maxay? adoo Ethereum haysta sell uma geli kartid coin kale, waayo wax aadan haysan oo aadan hore u gadan sell ma oran kartid. waa very simple. mana haysatid, hore uma aadan gadan, haddana waxaad u gelaysaa sell. how? ma dhici karto, لأنه ما بهيستيد بأصلا وحي هذا من هيسنبا سيدا سلو قري كرتا. وعجيب ويارين تاسو وأرين عجيب حقيقة. ولكن كريبتو وحد يستا إثيريوم وحربتين اسكا إيبسيد إساقا دورون كرتا سل. هذا هيستيد ويه إساقا دورون كرتا سل اسكا إيبين كرتا. لكن أنجي إثيريوم هيستا إنان إراهدو وحان روا إنان إيبيو كردانو ما بهيستو با تاسونا واحد لعي كرماه. ولكن مركب فوركس لأيغو
arrintaasuna waa very important way walaalayaalow si fiican dhegeysta marka forex la eego waa suurtagal in aad lacag aadan hore u gadan aad ka dhex sarifleyn kartid oo aad sell iyo buy u geli kartid ama short iyo long aad u geli kartid yani waxa aadan hayn baad u gelisaa buy iyo sell short iyo long waana sababta markasta la yiraahdo war forex waa khamaar ee iskaga carara waadax weeye in uu fahmo qofka ilaahay subxaanahu wa ta'aala aqli siiyay liman alqa sam'a wa huwa shahid inuu fahmo kelmadda si fiican u fikiro waxa aadan hore u gadan aadan bahaysanba inaad ku samaysid trade-kaaga aad u gashid buy iyo sell ama short iyo long sababtaas weeye sababta loo yiraahdo forex waa khamaar ee maaha sarifleyn run ah kalaam waadax weeye point-kaas ama point xasaasi ah waa soo soconnaa waxyaalo kala jiro ay ku kala duwan yihiin si fiican ila socda waxaan u gudbaynaa number 4 number 4 waa basiid weeye laba crypto oo pair isku ah مثلا iska dheh waxaad ba tiraahdaa atom bitcoin مثلا atom bitcoin iska dheh waa pair labada crypto ee pairka isku ah oo aadan midkoodna haysan kama dhex sarifleyn kartid sababtoo ma haysatid meesha taasi ay ka suurtagal tahay forex waxaan u gudbaynaa number 5 midda shanaad cryptocurrency waxaad u diri kartaa meel kasta waxaad u diri kartaa meel kale ama qof kale ama suuq kale ama waad haysan kartaa waladkaaga kugu jiri kartaa maalintaad doontidna waad la soo bixi kartaa waadna iibin kartaa taasna suurtagal uma aha in aad forex arrintaa ka samaysid mustaxiil weeye arrintaasuna forex suurtagal ma aha maaha cala kayfkaaga oranaysa wanaysanayaa markaan rabaan iska iibinaya meesha rabaan ka iibinayaa cala kayfkaaga maaha laakiin cryptocurrency waad ku samayn kartaa arrimahaas oo dhan waxaanu u gudbaynaa number 6 markaad forex eegtid run ahaan sell iska iibi iyo buy iibso aad ku arkasid meesha waxay u taagan tahay wax loo yaqaano short iyo long sell waa short buyna waa long haddaba micnaheedu waa maxay micnaheedu waxa weeye wax run ah oo aad leedahay sell ama waan iska iibiyey ama buy oo waan iibsaday ma jiraan totally ma jiraan walaakiin waxaan meesha ka dhacayaa waa wax loo yaqaano betting marka af Soomaali loo turjumana waxa noqonaysaa betting oo ah wax shardi dhigasho lagu geliyo jihada uu suuqu aadayo يعني dhinacu suuqu ku wajahan yahay baad shart u dhiganaysaa oo ku sameynaysaa betting khamaar oo kale akhyaarta taasna maxaa caddaynaya inay sidaa tahay waxaan idin siinayaa tusaale yar oo basiid ah haddaad in yar ila fikirtaan wax badan baa idin muuqan doona مثلا tusaalahaasi dhegeysta adoo forex مثلا ku haysta 1 billion oo dollar ah oo aad tirahdid sell مثلا lacagta 1 billion ka markaad tirahdid sell lacagtaadii bilyanka ama xitaa trillianka ahayd ma isleedahay wax saamayn ah bay suuqa ku leedahay may abadan ha noqoto 100 bilyan ha noqoto 100 bilyan markaad sel ku tiraahdid suuqa aad ku jirtid wax saamayn ah kuma keenayso suuqa kuma keenayso yani micnuhu waa maxay yani markaynu kriptada eegno haddii nin xuut ah ama nimeri ah ama whaleska loo yaqaano haddii uu suuqa soo geliyo intaasoo trilyan suuqa way saamaynaysaa suuqa saameyn weyn bay ku leedahay laakiin forex markaad eegtid waxba ka bedeli mayso suuqa yacni bilyanska aad selka ku samaysay suuqa wax hoos u dhaca ku ridi mayso haddaad buy samaysidna waa isla mid waana saa sheegay kriptadana waa laga dareemaya markay nimankaasu lacago badan soo geliyaan buy ha noqoto ama sell ha noqoto waad ka dareemaysaa isbeddelka ka dhacaya suuqa cryptocurrency-ga oo saameyn weyn bay ku leedahay oo arrimaha suuqa cryptocurrency-ga saameyn weyn bay ku yeelanaysaa example kalan kusii darayaa haddii مثلا suuqa cryptocurrency-ga la iska gado bitcoin la qiimo ah 1 trilyan مثلا oo dollar oo aad sell tirahdid oo la iska gado suuqa crypto oo dhan dhulku geliya oo uu saameynaya markaad cryptada xitaa buy samaysid iyada lafteedu waa la mid taas waxa weeye waa farqi muhiim ah inuu meesha tan forex wax kasta aad samaysid buy ama sell ha noqoto billions trillions wax saameyna kuma laha walaakiin cryptada saameyn bay ku leedahay taana ka fikir maxaa keenaya sababtu waxa weeye suuqan waa suuq sax weeye waa suuq xaqiiqi ah cryptocurrency-ga lagu shaqaysto oo malaayiin bashar ku shaqaysanayaan waad arkaysaa farqiga u dhexeeya markay tani khamaar tahay tanina ay tahay suuq laga ganacsanayo number 7 baynu u gudbinaa forex marka aad doonaysid inaad account furatid akoonnada waxaa laga furtaa brokers ama dilaalka waa taqaaniin waxaad u fiirsataa magaca kelmadda dilaal u fiirso qofka wax kaa gadaya ama aad ka gadanaysid forex baynu ka hadlanaa khiyaarta qofka wax kaa gadanaya ama aad ka gadanaysid waa isla isagii waa cajiib isla isagii baad gadanaysaa waaba haddii wax la kala gadanayo asaasan haddiiba wax la kala gadanayo weeye
meesha cryptocurrency-ga aad account-ka ka furanaysid waa suuq caadi weeye. مثلا example baan ku siinayaa exchange-yadan oo dhan daawo markaad eegtid waxaan oo dhan waa suuq waa exchange-yo cryptocurrency lagu kala gato. مثلا Binance oo kale $4 bilyan baa lagu kala gatay 24 hours ugu dambeysay. waa Binance maarta. Coinbase baa jira, Kraken baa jira, KuCoin baa jira. waxaan oo dhan waa exchange-yo waa suuqyo lacagta cryptocurrency-ga gudahooda lagu kala sarifto. oo macnaha halkaas ka furanaysa account-kaaga kani waa mid ka mid ah. مثلا waxaynu u gudbanaa qodobka 8 number 8. Forex markaad eegtid ma arkaysid dad wax kala gadanaya oo مثلا qiimayaal kala duwan wax ku iibinaya. ma arkaysid list ama مثلا nidaam ama dadkii oo arkaysid wixii la kala iibsanayo oo kanina ku offer garanayo price-ka intana price-ka intaas waxa arki maysid kuma arkaysid forex. walaakiin markaad cryptocurrency eegtid oo aad suuqa ama marketka aad dhex gashid waxaad arkaysaa wax loo yaqaano order book. halkaas ku aragtaa مثلا example kaas waa order book. waxaadna ku arkaysaa order book-ga dadkii wax kala iibsanayay iyo kuwii iibinayay kulligood waad arkaysaa. waxaad arkaysaa dad fara badan oo qof kasta offerkiisu soo dhigaya oo مثلا ka iska iibinaya sell halayda seller kuwa iska iibinaya waa casaanka weeye. waxaad arkaysaa mid kasta waxa weeye price gooniya ayaa ku arkaysaa meesha. مثلا kan oo kale price-kaas ku raba Ethereum maragta waa kala duwan yihiin price-ku. kan waa ka iska iibinaya kan waa ka iibsanaya maragta price-yo exactly maaha waa kala duwan yihiin. هذا السوق والكاس مرية برايس كاس ويه كماركت كا وقت حالقة برايس كا لكن دتك قاركود وحيكون رابان برايس إير كسر ريح حاجة واركتن سوما أوردر بوك وكا وذلك سادتك وحي أفر كرينا يقف كسر وحي ومقتى دونيه هذا ذلك إكتد كانوا هوية ودتك إسكي إبنية ماركتا لمبرد الدعوة ويسبدلية ماركتا 1553 ماركتا إك هدينو سعنه أوردر بوك أدبو ديري إك دتك سعنه ودت إسكي إبنية ماركتا قاربا برايس كودو كسر يا ماركت إك 1500 لو سوما قاربا كربا 1558 هدينو dhinac kale wareegno waxaad arkaysaa dadka raba inay iibsadaan kuna ku iska iibinay casaanku kuwana waa kuwa raba inay iibsadaan daawo. hadda qiimuhu suuq wuxuu marayaa markaad eegtid intuu marayaa 1552 inuu iibsado raba. qaarba waxay ku doonayaan lacag ka yar 1546 orderkooda si diyaarsadeen marka uu meesha yimaado hadhowtu waa loo iibinaya. very simple. waad aragtaa cryptocurrency-gu in wax kasta ay clear ku tahay. dadku wax kala iibsanayaan wax kala baayacayaan waad ku aragtaa. walaakiin forex waxaas ma laha. haddii videogaas si fiican aan idinku kala dhigdhigay oo si fiican idinku sharaxay waxa weeye ilaahay baa igu waafajiyey alxamdulilah rabbil caalamiin. haddii wax qalad ah ama sharaxaad aan waadix ahayn oo aan clear ahayn oo dadku fahmi waayaan haddaad ku aragtaan videoga taas waxa weeye mas-uuliyadda aniga qaadaya. waxaan jeclahay walaalaha Soomaalida ka trade gareeya forex waxaan oran lahaa dib isugu noqda ka fikir waxyaalahan caawa ka hadlay oo dhan dib ugu noqo xabad ugu fikir. ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu meel xalaal inaga irsaaqadeeyo. walaalayaal waxana waa adduun weeye baraha laga tegayaa inuu qofku adduunka ka tago isagoo meel xalaal ka shaqaysanaya oo moogtay quudkiisa iyo quudka ilmihiisa uga soo saaraya wax ka fiican ma jirto. akhyaarta videos kale ayaan iminka diyaarinayaa oo fatwadaha ka soo baxay alcaalam islaami waxay noqotay calaa mustawa دولته سيدا مثلا دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء الأردنية مجالس الفتوى الأعلى مجلس الفتوى الأعلى مثلا وقديه ووين ووزارته وهيئته سو صار فتوى ده أو علماء ووين أو دقالها كويس تشاهدون سرع أي كهدلين waxaan anigu aan iskay u keenay ma oo alifay maaha walaakiin waa wax waaqic ah oo caalamkan inuu joogno laga keenay. marka insha Allah videoga kale bantaa idin soo diyaarin doona. videogan waxaan ku sii dhameystirayaa culamo fara badan oo Soomaali ah ayaa ka hadashay arinta oo xarantimaysay forex. labada video oo dad badan ay ku qanceen oo marka ay daawadeen nihaa'iyan totally uga carreen oo yiraahdeen ilaahu waa kaaga toobad keenay meeshaana mar daba ku noqon maayo. labada doctor daawada videoskooda videoga dhammaadkiisa ayaan idin soo dhigay labada video oo aan farta ku fiiqi doono. labada video daawo dhamaystir doctors shahaadooyin sare ku haysta dhaqaalaha iyo culuumadiin ragga dhigayso fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun dhigayso ragga dhigaysta insha Allah ta'ala. marka walaalayaal videoga daawada si fiican videoga halo daawado ilaahay idin barakeeyo. sii share gareeya videoga meel fog gaarsiiya ha ku noqoto sadaqa jaariya oo aad ajar ka heshid inuu ilaahay ka badbaadiyo dadka meelaha xaraanta ka shaqeysta. barakallahu fiikum wa ana walaalkiin Axmed Aadam weeye. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.